dowladda federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi ballaaran oo hogaaminayo ayaa maqrinimadii caawa soo gaaray magaalada Tancadaad ee xarunta ku meel gaarka maamulka Galmudug waxaana madaxweynaha oo socdaalka uu ku weeliyay madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaab ay socdaal dhanka lugta kaga soo ambabaxeen maanta magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug waxaana madaxweynaha socdaalkiisa ku soo maray deegaano dhowr oo ka tirsan Galmudug ugu dambeyn madaxweynaha ayaa waxa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Cadaado ee xarunta ku meel gaarka maamulka Galmudug boqolaal dadweynaha oo isugu soo baxay afaafka hore ee madaxtooyada magaalada Cadaado ayaa madaxweynaha waxa uu kaga mahad celiyay sida wanaagsan ay u soo dhaweeyeen ugu horeyn madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelaxaab ayaa kaga mahad celiyay shacabka sida qiimaha leh ay u soo dhaweeyeen madaxweynaha Soomaaliya madaxweyne waa ka weyn ka soo dhacay qof weyn maaha ayaguna waa dhibtoodeen taalinaga ahaada marka lagu horeysa war badan ma jiro madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya ayaa shacabka reer Cadaado kaga mahad celiyay sida qiimaha leh ay u soo dhaweeyeen sida quruxda badan loo soo dhaweyseen weliba ilaa saakay u taagneedeen in aad sidaan oo kale iyo sida quruxda badan loo soo dhaweyseen oo aan hadda ka arkaynaa loo soo dhaweysaan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay aad iyo aad kaga mahad celinaya oo mahadsantihiin soo dhaweyntaan quruxda badan waxay tusaale u tahay ama ka turjumaysaa sida u wanaagsantihiin raacadada tihiin sidaad u wanaagsantihiin sida dowladdiina u kacaysihiin ee ka turjumaysaa soomaalinimadiina ka turjumaysaa wadaniyadiina ka turjumaysaa midnimada aad rabtaan iyo ka turjumaysaa Sharmaarka Maxamed Maxamuud TV-ga caalamiga Home Cable magaalada Cadaado.